بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دواada barnaamijka arrimaha haweenka oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan telefishinka STN xaruntiisa dhexe ku leh magaalada Nairobi. barnaamijka waxa idin soo diyaarisa halkan idin kala socotiisaan waa Nasra Maxamuud Dhicis ah. barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaa horumarka dumarka ay sameeyaan iyo waliba wax walba oo liid ku ah ee horumarka dumarka Soomaaliyeed. dhanka kale waxaynu ku soo qaadanaa inta badan tacadiyada kala duwan ee dumarka ay la kulmaan. barnaamijkana waxaynu ku soo martiqaadnaa hadba qofka aan isdhihi karno dumarka ayuu ka hadlaa arrimaha u qaaska ah misna uu ololeeyaa ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaa. galabtana waxaa barnaamijka marti uu ah Najma Ducaali oo ah gabar cilmi nafsiga ku takhasustay run ahaantii inta badanna wacyigelin ka sameyso gabdhaha ee la kulma cilmi nafsiga sida stresska kala duwan iyo waliba isla hadalka gabadh inta badan ee ka hadasho gabdhaha waana kala duwan siisa ayaynu barnaamijka ku soo qaadan doonaa haduu eebi itba. inta ka horeysa sida caadiga barnaamijka ayaan ku soo dhaweeyay Najma Ducaali ku soo dhaw barnaamijka haweenka telefishinka STN. waa mahadsantahay Nasra, waa ku mahadsantahay runaantii fursaddan aad siisay. waa hagaag aad u mahadsantahay. bal Najma aynu weydiina magaceedo saddexan iyo waxbarashada heerka ay ka gaartay bal aynu weydiina mar kale Najma ay magacayga waa Najma Ducaali Cadow. waxaan bartay cilmi nafsiga heerka labaad jaamacadda. waxaan ku takhasusay la talinta guurka ama qoyska ilaa qoraalkii wuxuu ku saabsanay guurka iyo qoyska. waa hagaag aad u mahadsantahay Najma. bal waxyaabaha aad qabataan hadii aad faahfaahin inaga siiso. la talin badan aan qabanaa, la talinta guurka iyo qoyska, la talinta waxbarashada, sida oo kale ilmaha gabdhaha ama wiilasha markay ka soo baxaan dugsiga sare noloshooda sida wax u qabsan lahayn la talintaas waa bixiya. la talinta dadka ama shakhsiga isticmaala manduuriyaadka ama daroogada, la talinta maskaxda caafimaadka maskaxda ama cudurrada dhimirka sida wax loo qaban lahaa la talintaasna waa bixiya. waa hagaag aad u mahadsantahay Najma. waxyaabo kala duwan ayay ka siisaa talooyin dhalinyarada haday tahay wiil iyo gabarba. balse galabta waxaynu halkaan ku soo qaadan doonaa inta badanna aynu diiradda saari doonaa haweenka qaabka ay ugu taliso iyo waxyaabaha maxaa ku raadaaye la gudboon marka ay la kulmaan dhibaatooyinkaasi cilmi nafsiga ku saabsan. aad u mahadsantahay. kormee bilowday hawshan maxaa kuugu dhaliyay adigu inaad hawshan aad qabato cilmi nafsiga? waxaan bilaaway sanadka 2018 laakiin waxbarashadii ka hore ahayd. markaan aan bilaaway cilmi nafsiga waxaa igu dhaliyay hamaansi darteed. waan jeclaystay inaan barto aan dadka wax ka caawiyo Soomaalida iyo ummadeen dhibka ka haysta markaan arkay. teeda labaad waxaan jeclaystay inaan fahmo maskaxda bini'aadamka sida u shaqeyso. waxaan aad u jeclaaday inaan fahmo bini'aadamka iyo sida u dhaqmaa iyo waxyaalaha ay sameeyaan sababta ay u sameeyaan maskaxda sida u shaqeysa. shaqadan aan la talinta aan bilaabana mar dhow sanadkana aygu kuwad aan gabdhaha aad ugu takhasusay oo la talina oo haweenka la mar walba waxaan jeclahay inaan horumarkooda arka. dhibaatooyinka haystana markaan arkay waan jeclaystay waxa kugu dhalatay inaad waada inta badan siisid. waa hagaag. dhibaato inta leeg ayay la kulmaysaa intaad dhibaato inta leeg ayaad kala kulantay intaad ku jirtay hawshan adigu ahaan maadaama aad gabar tahay dadyo kala duwanna aad waana siinayso bal dhibaato inta leeg ayaad kala kulantay? runtii Nasro dib kale ma kulmin. ima dadaal ma ogi iyo horumarkii iyo shaqadaas ma ogi. dib maanta aan kala kulmay cilmi nafsiga ama qoyska waxbarashada inay
igu taageereen moogi dib amaanta kala kulmay ma jirta dadaalkaas iyo xoogaas moogi waa hagaag ma koox isku duuban ayaa tihiin misna adiga oo kaliya dhaqdhaqaaqa mise waxaa tihiin koox isku xiran oo maxaan ku raadaaye hal meel isku wada yimaado oo dadkaasi talada sii ها dad ba aan la shaqeeyaa koox isku xiran baaneen adeeg oo kala duwan bay bixiyaan qaarkood waa looyerin qaarkood dhakhtarin oo maskaxiyan wa annaka oo kale oo la talinta sharciyeysan soo aatiinidika ha koox isku duwan oo isku duwanaan oo qaab kala duwan u shaqeynayso waa hagaag qaab noocma ayaad ula hadashaa gabdhaha gaar ahaan hadda bal aan usoo laabano gabdhaha oo kaliya qaab nooca ayaad ula hadashaa marka aad doonayso inaad la taliso gabadha dhibka waaba ku dhacayba cilmi maskaxdii ayaa nooc kale ka noqotay maxaan ku radaa stresski ayaa ku badan way isla hadashay nooc walba waxa ugu yimaadeen marka adigu qaab ahaan noocma ayaad ula hadashaa noocan ula hadlo waxa waaye horta waa fiican tahay qofka bini'aadanka si degan inaad wax ugu dhacdhacsiisid oo la hadashid maadaama qofkaanito uu dhib haysta dareen badan uu dareemaa marka waa inaad qofka dejisid oo si fiican wax ugu dhaadhicisid oo si toosan oo qurux badan inaad horta qofka dejisid kadib aad si degan wax ugu sheegtid ها maadaama qofka qof toosan ama aqligiisa fuuliya ma marka si degan oo aad dadka kale ugula duwan tahay inaad ula hadashid waa qofka صح marka qaabkaas waa hagaag aad oo mahadsan tahay najma wali ma jiraan gabar la kulantay arintaasi dhibaatadaas ay haysato oo adiga la kulantay oo gooni inta la baxday aad si degan aad wax ugu sheegtay kadibna maskaxdeeda talooyinka ay qaadatay ilaahayna caafimaad ugu daray ma jiraan oo dib maskaxdooda maxaa ku raadaya sida hore ugu soo noqotay stresski wax keenay way jiraan gabdho badan oo saas ku dhacday oo sida sheegayso la hadlay oo dejiyay oo kadibna noloshooda wax iska la bedeleen صح fikradoodana ay bedelmatay marka way jiraan gabdho badan oo depressionki ama shuuc ama stress ku haay oo maskaxdooda wax ka bedeli kartid qaabka ula hadashid kale marka way jiraan gabdho badan oo aad u caawiye wad la kulantay waa hagaag bal dhanka iyo guurka inuu u dhaadhacna guurka kadib isbedelka imaadaya sabab u ah ayaan isdhigi karnaa run ahaantii dadka labada qof iswataan ama heshiiska ama is guursadeen ma dhihi karna hal qof baa eeda la saara inkastoo qasab waxay jirta qof uu qaladkaasi hal qof saara ay kale ay og laakiin marka la talinaysid ama lamaanayaasha ku imaadaan qof baa qaldan qofna ay sabarka ku yaraatay ama ay ka dhamaatay marka dhibka meeshaas ku imaada marka ma dhihi karna gabadha qaldan ama wiilka qaldan lamaanayaashu way kala duwan yihiin dhibaatooyinkan way kala duwan yihiin waxaa arkaysaa hal qof ma ahan dhibka marar qaarkood marka weli ma jiraan qoysas sida camal dhibaato ku dhacday oo idin imaaday oo la hadasheen oo nolosha halka ka sibatay way jiraan qofka saan ku sheegay labada qof markay ay heshiis yihiin ama ay isfahmayaan markay dhib ka yimaado qof saddexaad oo maashadooda wax ka ogeen ama noloshooda wax ka ogeen hadduu la fadhiisto la hadla waxaa laga yaabaa inay wax siday arkeen maahan si kale inay in arkaan noloshii isla qaybsadeen ama ilmihii dartood wax walba ugu tanaasulaan waa hagaag aad u mahadsan tahay ma la dhihi karaa burburka qoyska waxaa sabab u ah waalidiinta labada qoys marka waxaad arkaysaa qoyskan inuu faraxsan yahay cadaadis dhanka waalidka ugu yimaado mar dhanka gabadha ha noqoto ay dhahdo wiilkan sidaan maahan dhaqankiisa sidaan maanan jeclaysan waalidka gabadha yiraahdaan mar waxaa laga yaabaa dhanka iyo wiilka inuu qoyska wiilka gabadha cadaadis ugu yimaado
noloshii labada ruux ayagoo isku fahansan dhibaato dhanka banaanka ay ugu yimaadaan soo isma dhigi karna marka inta badan qoyska burburka waxa uu keena waalidiinta horta labada qof oo heshiiska ama isqabaan sax ayaga le go-aan gaari kara sax ma fiicna marka inaan aan saarna eeda waalidiinta maanta ani haddaan wax rabo cid iga hortagi karta ma jirto haddii aan go-aansado waxaan waa rabaa marka lamaanayaashu waxaa fiican oon waana iga tahay qof saddexaad inuu noloshiina soo dhexgala ama wax ka bedela ma fiican ilaa ma idinka labadiina aada heshiisiin ood go-aankaad gaartiin marka waxaa arkaysaa wiilka reerkiisa ama gabadha reerkeeda inay familiga qoyska wax ka dhahaan ama ay tala bixiyaan ama ay cadaadiska sheegaysid ay ku hayaan ay saaraan labada qof isqabta ayaga le ka hortagi kara oona go-aan gaari kara wixii ayaga faa'iido ugu jiro ama noloshooda iyo farxadooda iyo jecelkooda ka fikiri kara marka ma fiican in eed qof kale la saaro gabdhaha qaarkood waxay ku dhahaan qof aan asxaabnayn ama saaxiibtii asaani dheede guurkeygaan ka tagay ama dhibkaana iga soo gaaray marka ma fiicna waxaa fiican in aada isku kalsoonaatiin qofkaana aada nolosha la wadaagaysid inaad isfahantiin qof kale dhexdiina galin sax waa hagaag aada u mahadsan tahay dhalinyarada marka ay hasaabayaan intay isguursaneen ka hor waxaad arkaysaa inay maxaan ku rahdaay isku faraxsan yihiin marka ay qoys wadaagaan dhibaato kala duwan ay la kulmaan marka taa ayada ah maxaa sababay xiriirka miya ah xiriir horay oo maxaan ku rahdaay khiyaano ku dhisnaa ah marka guriga la yimaado noloshii dhabtay la arkay isbedelka sidaas ku yimaada waa halka sabab oo guurka gadaal ugu bedelma waa tahay qofka waxaa laga yaabaa inuu wejigiisa toosan inuu ku tusay marka xiriirka idinka dhaxay sax marka qofka isbedelkiisa maaha isbedel markaas imaaday wuxuu ku tusay qofku wuxuu ahaa waxaa laga yaabaa inuu daacad ama kuwahan runtiina kuu sheegayn waxaa marmarna waxaa dhici karta inay xiisihii dhammaaday sax mana ahan inuu nolosha ama xiriirka inuu ku dhisnaado xiisa inay dadka waana fariin iga dhalinyarta inay toosnaadaan runtii iyo dhaqankii iyo diinta inay laga tegin oo qofkan waxaad ku jeceshahay aad ku raacdid inay dhabka ahaad ee xiisana ahaan waa hagaag aada u mahadsan tahay yaa idinka caabiya arintan misna gacan idinka siiyo kooxdiinaanin oo isku duuba qof naga sii ma lahan ana kale aan wada shaqaysano oona dadka caawiye marka maanta ma ku dhihi kara qofa ama hay'ad ama dawlad waxba aad ku tiirsan may waa hagaag aada u mahadsan tahay qaab noocma ayaad lagu gartaa qofka markuu dhibaatooyinkaas cilmi nafsiga uu la kulmo sidaad ku karnaysa qofkan waxa laga yaabaa inuusan jismiyan caafimaad uu qabo halka uu iska fadhiyo marka adigoo ahaan qaab noocma ayaad ku garan kartaa maadaama aad cilmi nafsiga soo baratay waxaa ku garan kartaa qofka sida uu hadlayo ama fikradiisa uu baxsanayo ama ra'yigiisa markuu baxsanayo inay wax ka qaldayiin marmar qofka ma isku kalsoona uu niijabe hadalada uu ku hadla kaliya ka kasi kartaa waxaad ka kasi kartaa qofka wuxuu uu diidaa inuu waxyaalo uu jeclaa inuu sameyn jiro farxadda ka muuqatay inay bedelmatay marka taas wax badan oo la soo koobi karana aad ku garan kartaa qofkan inuu isbedelay waxaa laga yaabaa inuu dadka ku dhex jiro uu fadhiyo oo caafimaadkiisa markaa korka aad leedahay waa fuul oo dadka siduu la macaamiltama inay fiican tahay laakiin qofku marka aad la hadlaysid hadalaha uu ku hadla aad ka garan kartaa waxyaalo badan aad ku garan kartaa waa hagaag aada mahadsan tahay bal khatar intee la eg ayuu la kulmayaa qofka depressionka qaado heer intuu gaarsiisan yahay cudurkaasi nafsadiisa ilaa khatar intee la eg ay gaari kartaa waxay gaari kartaa ima qofku ku waayo noloshiisa
ama uu sameeyo waxyaalo oo noloshiisa dib Khatar u ku ah. keenta ha oo khatar ku ah ama wax asaga faa'iido ku ah asaga u ahayn inuu ku dhaqmado. waxaa arkaysaa qofka hataa inuu u isticmaalo maandooriyaasha ama muqaadaraadka صح uu noloshiisa naca. marka depressionka waa wax aad qofka marmar cadaadiska iyo cariirigu dareema صح inuu qofka hataa ku waayo noloshiisa kuwaad. wahagaag xarunta ma Nairobi oo kaliya ayaad ka howlgashaan misna wacyigelinta waxaad ka sameysaan gobolada kale ee Kenya? hadda Nairobi kali waxaan ku egnahay. صح waa jiraan waxaan jeclaysan inaan xaafadaha Nairobi kali ku yaala inaan wax ka qabana. صح hadda South Sea aan joognaa xarun ku leediin. ha marka waa very soon waxaan rabnaa inaan xaafadaha aan tagna oo sida aad wacyigelin u sameyn lahaydeen. ma Soomaalida oo kaliya ayaad kala hadashaan arrintan misna ajaanib kale idin imaado? Soomaalida u badan. صح saan horaan u sheegay waxaan jeclaysanay inaan Soomaalida horumar u gaarsiina oo dhibaatooyinka ay la kulmayaan dhinaca nolosha aan ka caawin. way jiraan ajaanib ku imaana meesha bicsha waxaad u furatay ganacsi way qadii ku imaadaan waan caawinaynaa laakiin anaga waxaan jeclaysanay inaan Soomaalida aan xoog saarno. وهذا بل هدي أد قيمة سومالي دي أجانبته بتسري كرتا دباتوين أنت بدن ويسو جرتا Soomaalida maadaama may aaminsana dhinaca harta anaka oo la talinta ma aaminsana mana jecla inay imaadaan oo dhibaatooyinkooda sheegtaan ilaa ma qofka uu dareemo uu u baahan yahay adeega bixinaysid qof baa ku soo xiriirina oo dhaha xaruntaas ay jirto ha bal wax dhinacaasna eeg oo wax ma ka bedeli kartaa noloshaada. laakiin in badan ma aaminsana dadkeena Soomaalida sabab ay u aaminsanaan lahayn inay cudurkaas ay qabin ma aaminsana way aaminsanyiin inay jirto laakiin waxaa arkaysaa qofka wuxuu isu maleynaa inuu daciif inuu liito marka waxaa laga yaabaa inay xishood soo gala ama cabsi ra'yigiisu sheegan karin. teeda labaad waxaa arkaysaa waxay u maleynaan cilmi nafsiga inay ka imaade reer galbeed dhaqankeena ma ahan ilayha. صح marka waa u baahan tahay dad sida danka hadda sameynaysa inay loo sheego wacyigelinta loo badiyo oo ay cilmi nafsiga faa'iido weyn uu leeyahay. صح ila talinta qofka because wuxuu ku soo baxaa qof toosan oo macaamiltama dadkiisa iyo qoyskiisa iyo reerkiisa si wanaagsan sida hore uu ka duunaanaya. waxa maxaa keena ayaan isdhigi karnaa arrintaasi stress dhibaatada qarsoon ee qofka maskaxdiisa bedelayso maxaa keena? waxaa laga yaabaa qofka inuu waayo qof aad u jecel yahay noloshiisa ama qofka inuu geeriyoodo ama ka tagay cadaadiska ganacsiga keen kara shucaaca kuu furma markii aad wax baranaysid ama dadka la macaamiltamaysid inay wax ku dhahaan aad ka xumaatid ama ciilootid ama dhibootid marka waxyaalo badan ku keen karaa ama cadaadis family marka waad dareemi qofka inuu isbedelo dhib badan la kulma bini'aadanka intaan noolnahay adduunka waana lagu imtixaama dhibaatooyin badan waa la kulmaysaa. dad qaarna way ka socon karaan waxay dhahaan wax weyn qofna waxaa laga yaabaa inuu isla hadlo maskaxdiisa uu dhib isu geysta asaga nafta noloshiisa taa kalsooni dareen imaada oo is aamin waayo. marka inta badan waxaad arkaysaa hooyo caruurteeda dilayso taa iyada depressionka sabab u ah bilaa waxaa laga yaabaa sida ayada waxay arkaysaa inay qaraacaysa qaraac ma ka hadlayno caadi nafta inay ka qaado qofka marka maxaa ku sababi kara hooyo qofka dunida ugu naxariista badan
inay caruurteeda dib inta ugu noqoto disho nafta ka qaado soo dhibaato haysta maaha ha waxaa laga yaabaa inay depression kaste sax ama cudur dhimir kale qabta bipolar ama waxyaalo badan cudur badan jira sax kuma koobi karna depression kale sax marka qofkaas oo kale baaritaan iyo qiime u baahan yahay aad iyo aad inta badan laakiin dadka waxay yiraahdaan waa isla hadalka iyo waxyaabahaas ay dhibaatada inta ugu badan inuu qofka cadaadis kala kulmo bulshada qaybaheeda kala ayuu maxaan ku raadaya cadaadis kaaga imaada arintaas waxaa jira sida aad ka dhawaajisay maandooriyaha dhalinyarada isticmaalo bal dhalinyarada maandooriyaha isticmaalo marka ay iskoolada ka soo baxaan waxbarasho ilaa heer jaamacadeed ay soo dhameeyaan waalidiintooda ay ku soo tacabeeleen waxaa laga yaabaa inuu shaqo waayo taa ayada ma dhaliso inuu maxaan ku raadaya depression oo qaado kadibna uu maandooriyaha shaqo u ka dhigto ha sabab waxaan kartaa qofka markuu depression ama shaqo uu waayo ama noloshiisa horumarkeeda uu arki waayo wuxuu ka qaban kara marka wuxuu arkayaa waxaa laga yaabaa inuu ku cararo maandooriyaadka iyo maskaxda ku degsado ha dadna waxaa jirta mobile qof la tali ama gacan qabta oo xagga nolosha ma haystaan marka waxaa arkaysaa asxaabtaada wixii isticmaala adna waa ku darsman peer pressure waxa la dhaha maadaama dadka aad la joogtid sidaas u dhaqmaan adna la dhaqantid sida oo kale u dhaqmatid qasab maahan depression kale dadka ma aragtay isticmaala daroogada iyo maandooriyaadka depression kale xuma geysa ama dhibaatooyin uma geysa dad qaarkood waxa u geysa yani ha inay ay fiiriyaan maandooriyaadkaneetooda dadka asxaabtooda isticmaalaan anna sida asxaabtaada ku biirta sax marka laakiin inta badan waxaa jirta dhalinyaro ku dhehayso shaqo la-aan ii geysay maskaxda iskaaga degsanaa taa ayadan way jirtaa soo ha way jirtaa saan u sheegnay qofku maskaxdu ku degsana yani escape waa ka carara dhibka haysto ka carara wuu ismoogsiinaya ha wuu ismahweelinaya waa hagaag waxaa jirta run ahaantii dhalinyaradaas maandooriyaha isticmaasho maadaama adiga hadda qaybta gabdhaha aad u xil saaran tahay ma jiraan wiil sida camal maandooriyaha isticmaalay oo idinla soo wadaagay arintooda kadibna aad tala ka siiseen ha tala kaliix ma bixinaysid qofka waxaa fiican markuu ku yimaado uu qirtay inuu dhib haysta qofkaas aad caawin kartaa qof isla saxsan ama isla toos isu maleynaya inuu toosin yahay wax kama qaban kartid maadaama qofka ku yimaado ku dhaa dhib ay haysta waxaan rabaa inaan istaajiyo isticmaalka daroogada qofkaas kow markaad la hadashid si degan wax ugu dhaadhacisid teeda labaad waxaad sameynay inaad ka dhaqdid systemkiisa jirkiisa daawooyinku isticmaalay because side effect ay leeyihiin saameyn ku leedahay qofka waa inaa qofka marka maskaxdiisa ka lix maahan systemka iyo body iyo jirkiisa inaad dhaqdid oo siduu ahay isku dayid inaad kusoo celiso qofkaas marka kadib aad ka because qofka waxaad dareemaysaa markuu isticmaalo daroogada waqti badan inuu uu lahaana yani inuu u baahanay markuu waayo wuu raadina marka waxaa jirta daawooyin qofka la siina ka goynaysa dareenkaas aad ku raadin lahayd daawooyinka marka qofka markuu daroogada ama isticmaala maandooriyaadka noo yimaada process badan uu maraa la talin kaliix maahan wuxuu marayaa inuu daawo la siiyo inuu jirkii la dhaqo marka taa ayadan daawadaas waa bixisaa waa hagaag ragga iyo dumarka way u simeeyeen ayaan filayaa dhibaatadan haysatay depressionka iyo wacyigelinta aad samaysaanba sideed u kala qaataan ma rag waxaa jiro gooni u ah oo ragga wacyigeli xaruntii cilmi nafsiga waan barane laakiin diintii dhaqankana inaan ka tagna maahan gabdhii gabaraa u xil saaran wiilashana rag baa u xil saaran oo sidii raaxa isu u hadli karaan oo qofka inuu gabadhii
ay la hadli karin wiil Ha. waxaan ku radaa ay ka Ha. xishoonaysa mise ay ka baqaysa dhibaatada u sheegin kari ha inay gabar gooni u hesho oo dee gabdhaha Mhm. waxba ma kala qarsada ha sax taas darteed gabdhahana gabdhaha u xil saaran wiilashana wiilala u xil saaran waaga weli ma jirtaan xalfado aad qabateen oo wacyigelin aad ku samayseen bulsho aad iskugu keenteen taas weli maan sameynin laakiin qorshaheena waa inaan had ka dambe sameyno maadaama aad ogsan tahay corona dhacday dadka iskumaadka iyo waa laga kala ha laakiin social media waan wax badan waan wacyigelin wacyigelin waad ka samaysaa Ha. social media waana ku mahadsantiin fursadan oo kale dadka STL ha loo geynaa waxaan ka hadalnay hadda oo kale waa loo gudbin doonaa way arki doonaan sax taas oo kale waa wacyigelin nooc kale laakiin xaflada ama lasu imaana dadka loo sheega weli maan sameyn laakiin qorshaheen waa ku jirta waaga ma inaad ka hadashaan guurka oo kaliya oo dadka maskaxda waxaan ku radaa qoyska guurka burburka ah oo kaliya maad ka hadashaan mise waxaad ka hadashaan oo kaliya oo kale ood ka hadashaan gabadha marka camal dhibaato ay kala kulantaa gudniinka fircooniga ama kufsi loo geysado taa ayada xaruntiina ma u banaanta inay imaadaan wacyigelin ay ka helaan ha la talinta kuma koobna guurka ama qoyska ama kuma ha dhinac walbaba qofka waa fiican tahay inaad la taliso si qof toosan u noqdo marka haddii ay dhibayso gabadha guditaanka lagu sameeyo ama la kufsaday ama la farxumey waxaa laga yaaba hataa qoyska ku jirto inay ciiloonayso ay arkayso keligeed inay tahay qoyskaa laga yaabaa qoyskeed inay cadaadis uga imaado ha waa laga yaabaa laakiin way ku yar tahay qoyska usually waxaa arkaysaa qofka marar badan inay caawis moogi inay dhib u keenin laakiin qofka waxaa laga yaabaa mar asaga naftarkiisa inuu isla hadlo oo dhib asagna isu geysto waxa maskaxdiisa ka dhaadhacsay marka fikradiisa la bedela qofka dhibaatooyinka soo maray la dhahaa way dhacday cashar ka qaado horumarkaada ka fikir hadda waxyaalo badan oo la talinta noocaasna aad aan u bixinaa because saan u sheegay waan jecla sanaynaan aragna gabdhaha ama haweenkeena ama wiilasheen inay horumar gaaraan aad iyo aad oo ay caafimaad maasha allah ay helaan oo maskaxda waa hagaag marka gurka gudniinka fircoonigana gabdhaha waa lagula kacaa kadibna dhibaatay kala kulmaan waxay noqotaa inay mustaqbalkii dambe ay dhibaato kala kulanta guurkii dhibaato kala kulanta dhalowga dhawey dhibaato kala kulanta taa ayadana wacyigelin ka bixisaa had weli maan arkin gabar ii imaado oo dhibaatadaas qabta laakiin isaa cilmi nafsiga markaa baranaysa qofka dhinac walba noloshiisa imtixaanka uu arkaa inay aad ka hortegi kartid ama haddii qofka ku dhacday aad ka caawin kartid ama la talin kartid waa usoo baranay waa waxaan ku takhasusnay wax ka dhacda dhacdooyin oo ka dhaca caalamka ka dhaca marka diyaar baa unaan because cilmiga waa u haynaa waan experiencekii waan soo aragnay marka qof walba oo noo imaada dhib kastoo haysta ama maskaxiyeen cuduraa dhimirka ahaada ama guurka ahaada ama gabarnimadaada saa sheegtay dhibkaas soo marta marka waa la talinaa waana qofka waan isku daynaa inaan bedelna waa hagaag aada umahadsantiin ajaaniibta kale soomaalida mala qabtaa dhibaatadan misna soomaalida saaid ugu badanta baaritaan haddii aad sameysay weli baaritaan ma samaysay ood ma isbarbar dhigtay caalamka kale ajaaniibta ku nool iyo soomaalida bal yaad isdhigi kartaa way u badan yihiin dhibaatadaas qof u badan ma lahan soomaalida iyo ajaanibta bini aadam hadii liisaan u sheegay dhib badana adduunka kala kulmaysaa waxay noogu duwayiin waxaa waaye ayaga wax bay ka qabtaan ama way ka hadlaan anaka maadaama dhaqankeeni qofka lagama yaabo inuu ka hadlo dhibka haysta ama wuxuu arkaya inuu daciif ama qof liita marka waxaa laga yaabaa inuu qofka
inuu ka hadlin dhibaatooyinka jira laakiin waan arkaynaa inay dhacaysa waa arkaysa dhibaatooyinka gabdhaha haysta wiilasha haysta wax ka hadlaa ma jirto dadka ajaanibta marka waxay jecel yihiin wax walba inay banaanka soo dhigaan waxay inay sheegaan wax walba dhibaato ayna ku dhaqaaqaan maxaan ka qaban karnaa haddii cilmi nafsiga ay counseling aadaan therapy aadaan oo wax ka qabtaan Soomaalida marka way qarsadaan dhibkii waan u jeednaa waxa la yiri oo ku qarsanay way ku qarsadaan naam marka dhibkii waan u jeednaa waan arkaynaa marka wax inaan ka qabano waa fiicanta inaan isku dayno ayakana ay noo yimaadaan arkaan adeegan bixinayna inuu faa'iido ay ku yihiin صح وحاجة والعلماء ما كلها هذا الشيء أرنتان سيدا قرب وهشان وعي قرنت أي إذا لسمية ها كوحدة لشقة إمام باكوجر الشيخ ده ما شاء الله أو ويليش أنت قبلها تاي ويليش أنت جورسن لها الله وعي قلي صح دباتوين كجرة لنا عدينتي وحس أنا كهتا علم كفائدين صح علم نفسي waxaan ku kahashanaa diinta iyo quraanka iyo sunnada marka dad culimo waan la shaqeynaa culimadan garab idinka saar waxaad aad u mahadsan tahay Najma Ducaale waa gabar run ahaantii ku takhasustay cilmiga inta badan ay ka soo baratay cilmi nafsiga arinta maxaa ku raadayay dhibaatada guurka ay dadka kala kulmaan lamaanayaasha kala kulmaan waliba dhibaato maxaan ku raadayay nooc walba ay tahay gabadha ay la kulanto wiilka si gooni u la kulma inuu qofka isla hadlo inuu qofka maxaan ku raadayay nafsadiisa qatar u geliyo intaba maxaan ku raadayay waa gabar ku takhasusto oo ka hadasho aadaan ugu mahadcelinayaa bal qaybihii dambe barnaamijkeena soo soo gaarnay Najma baaq intee aad u diraysaa dhalinyarada maskaxdooda ku ciyaaro kadibna maxaan ku raadayay qaado dhibaatada intaas la eg oo depression ka misna stress ka qaado maxaa looga baahan yahay marka hore intaadan gaarin arintaas dhibaatada inaad maskaxdaada isqaab noocee ayaad jeceshahay inaad u maamusho waxaa fiican horta inay qofku markuu isla hadlaa waqti walbaba ama gees adoo u fadhid ama dadka ku dhex jirtid marar qaarkood waxaa fiican marka isla hadlaysid inaa wax fiican ama khayr inaad aad iska dhaadhicisid صح wax negative mar walba inaa maskaxdaada gelis ma fiicna صح qofka inuu israacsiin dib kastuu mar umar inuu niijabin oo shaqada iyo dadaalkii la yimaado sidii wax ku bedel lahay noloshiisa dhibkiisa sidii horumarkiisa u gaari lahay marka mar walba aad isla hadlaysid waxaa ku dadaasha ina wax khayr ah ina niyada u sheegtid wax walba ilaahay inay qadartiisa ku socoto صح dib kasta ku gaarsa ku yimaado ama ku gaari ina ilaahay wax ka bedeli kara qof dartiisna inaan u niyajabin صح rabbigaada u ciisatid oo gacmaha u horsatid anna iska shaqeysa gabadhan waxay leedahay wiil ay iga tagay wiilku wuxuu leeyahay gabar ay iga tagtay marka taa ayadana waa inta meel fariistaad isla hadlaysaa kaliya marka meeshaas ay ka bilaabanaysaa hawsha cilmi nafsiga depression صح ina israacsiin qofkaas ama aad u niyajabin qofkaas dadka si socotid aad cashir ka qaadatid wixii dhacay aad cashir ka qaadatid horeyna u fiirisid adoo isku kalsoon in ilaahay tala saaratid wax inay bedelmaan wax permanent adduunka ma jiro wax walbana waxay leeyihiin solution marka inaad taas aamintid way fiican tahay inaad iska dhaadhicsin wax xun iyo maashadaada noloshaada ku waysa dad haddii aad qof kaa tagay ama qofna aad ku waysay adduunkaaneeto dad ku jecel oo kasii fiican laga yaabo inay ku soo maraan oo fursad siisa maskaxdaada iyo qalbigaada aad dejisid marka dhalinyarada maandooriyaha isticmaalana baaq intee ayaad u diraysaa maadaama maandooriyahaas uu noqon karo inuu wax u dhimo maskaxda waxaa fiican inay iska istaajiyaan maandooriyaadka faa'iido ma lahan in dib ku keeno moogi faa'iido ma lahan saa u sheegtayna marmar qaarkood
wax permanent maskaxdaada u gaarsiiyaan marka waa jirtaa inaad istaajin kartid marar qaar waxay ku dhahaan ani adigtaa noqday ma istaajin karin taas waa wax adi iska dhaadhicisa waa wax adi iska bedeli kartid oo go-aan ku gaartid ood fadhiisatid ood dheedid horumarkii inaad ka fikirtid aad ka fikirtid mustaqbalkaaga dambaa ku dhumaya haddii aad xilli walba meel aad u fadhiso inaad maandoori oon lagaa bedeli karo lagu caawin karo oo lagaa ka hortegi kartid isticmaalka maandooriyaadka iyo daroogada wahagay aada umahadsan tahay Najma dhanka kale baaq intee leeg ayaad u dareysaa haweenka jecel inay horumar ka sameeyaan bulshada oo ay kalsoonidu ku yartahay run ahaantii waa gabagabadii barnaamijka ayaynu joognaa barnaamijkan waa barnaamijka arrimaha haweenka qof walba oo haween ka mid ahna markii lagu martiqaado waxaan jeclahay inuu baaq u diro haweenka kale oo jecel inay horumar ka sameeyaan bulshada hadday tahay ganacsi hadday tahay inay hadlaan sida camal adiga maanta tartaanba dhibaatadan maxaa ku radaa ilaahay wax walba ka hortago sida aad waana u siin lahayd misna aad wacyigelin u sameyn lahayd dhalinyaro fara badanna aad u sameyso bal gabdho waxaa jira wax bartay guryahana joogo oo isla run ahaantii haddii aad waxaan sameyn lahayd waad ku guuldareysanaysaa isle marka kuwaas baaq intee leedahay u diraysaa horta qofku waxaa fiican inuu go-aan yeeshto sax uu go-aanka markuu gaarana ku dhaqaaqa sax dadaalka iyo shaqadan inaad la imaadid qof ma iska fadhin kara ma dhihi kara waxaan bartay fikradan baan haystaa horumarna ma gaaray marka shaqada waa inaad la imaadid aan bini aadan haddaa tahayna ama qof aad tahayna inaad isku kalsoonid ood aamintid inaad wax qabsan kartid kadibna shaqada la imaadid marka waa inaad fadhiga ka kacdid horumarkaada ka fikirtid haddii aad qorshahaadana kuu qoran yihiin saan wax u bilaawaa yaa i caawin kara intaan la aadaa fikradan yaa garab qaban kara inaa waxyaalaad ka fikirtid inaad ka fikirtid maahan waad ku guuldareysanaysaa inaad niyadaada ka dhaadhicsid qofka inuu niijawo ma fiicna mar walba wahagaag aada umahadsan tahay Najma Ducaale oo barnaamijka marti ugu ahayd run ahaantii waa gabar ku takhasustay cilmi nafsiga ka hadasho run ahaantii guurka lamaanayaasha iyo burburka ku yimaado nooc walba ay tahay qofka maskaxdiisana maxaa ku raadaya markay isbedesho talooyin kala duwan ay siiyaan ayada iyo waliba koox ku xiran oo xaafad ka mid Nairobi xaafadaha South Sea ee degan tahay run ahaantii xaruntoodan halkaas ay ku taalaa wixii maxaan ku raadaya tala ah tusaale ahna ayada ayaad kala xiriiri kartaa halkaas qofka maxaan ku raadaya inta badan sida barnaamijkaba ay nooga soo warantay talooyin kala duwan ay ka siiyaan dadka dhibaatadaasi la kulmay waan ugu mahadcelinayaa barnaamijka sida quruxda badan ay nooga soo noqotay marti waliba shaqadeeda iyadoo nooga soo qaatay sida ay halkan wacyigelin ay ka sameyso aad u mahadsan tahay Najma Ducaale mar kale iyo waliba la kulanka STN waa ku mahadsantahay nasra fursadan adeegsays wahagaag aad u mahadsantahay Najma soo dhawo mar kale ayaynu leenahay barnaamijka intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa daawadayaal barnaamijka arrimaha haweenka toddobaadkiiba mar aan ka hadalno arrimaha haweenka ku saabsan haday tahay horumarka dumarka iyo waliba wax walba liid ku ah horumarka dumarka taacadiyada kala duwan ee dumarka la kulmaan ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaa barnaamijka waxay idin soo saartay halkaan idin kala socodsiineysaan waa Nasra Maxamuud Dhicisa dhanka kaameradana waa Injirooge dhanka farsamadana waxa gacantii uga hayeen ayagoo isku duwan waxaan leeyahay aad iyo u maasihin tan inta ku kulmi doono barnaamijka xiga toddobaadka dambe anagoo isku wada duuban waxaan idin kaaga tageynaa sida iyo amaana Allah